بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ولا لدي قالق أصحابتي إذا شرفت سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. walaalka qaaliga ah, aayad kastoo aayadaha alla subxaanahu wa tacaala ka mid a qur-aankiisa xikmad aad iyo aad u weyn oo nolosha insaanka ay ku jirto uuna ku mutaysanayo ridaha ilaahay fi dunya wal aakhira ayaa ku jirto. aayad kasta oo alla subxaanahu wa tacaala soo dejiyey xikma rabbaaniya ayuu u soo dejiyey. ku dayasho iyo ku dhaqan ayayna kitaabka alla subxaanahu wa tacaala ugu taallaa. aayadan qur-aankii hadda aan akhriyey, allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kula hadlayaa xabiibkeenna maxamed ibn cabdillaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay, fabimaa raxmatin min allahi linta lahum, naxariis alla rabbi xaggiisa ka timaaday iyo gallad alla xaggiisa ka timaaday ayaad ugu nuglaatay oo ugu jilicsanaatay dadka ayuu leeyahay saxaabadaada. walow kunta faddan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlik, ee haddaad ahaan lahayd mid ka kan oo qalbi adag oo kani adag oo aan naxariistu ku badnayn, lanfaduu min xawlik, lanfaruu minka, way kaa kala tegi lahaayeen, way kaa kala yaaci lahayen buu alla subxaanahu wa tacaala leeyahay. facfu canhum, iska cafi, wastakfir lahum, alla subxaanahu wa tacaala u dembi dhaaf dalb. waxay maalinkii uxud qaladaadka dhacay dembi dhaaf alla subxaanahu wa tacaala u weydiiyu alla subxaanahu wa tacaala leeyahay. washaawirhum fi lamri, subxaana allahi caza wajalla, amuurahaaga iyo hawshan iyo nidaamka iyo hawsha aad ku jirto iyo jihaadka aad ku jirto iyo hawsha aad ku jirto, washaawirhum fi lamri, ka talageli subxaana allahi caza wajalla, oo dictatori ha noqonin subxaana allahi caza wajalla. أشرف الأنبياء سبحان الله عز وجل والنبي الله محمد ورسول الله وخاتم النبيين أي وحلولا يا الصحابة هذا وشاورهم في الأمر سبحان الله عز وجل. فإذا عزمت فتوكل على الله، هذا قوان قاعتنا ربي تلسارو الله سبحانه وتعالى وجعله قوة لبسارته. سببتان آيات أوكينا محيتها ولالكيجيو كبل لو قريقاقا قويسكاقا عرورتاد إيحاسكاقا washaawirhum fi lamri subxaana allahi caza wajal. howla dunyaa ku haysata reerkaaga iyo qoyskaaga, adigaa aabaka, adigaa madaxka, adigii talada kaa go-daa. laakiin alla subxaanahu wa tacaala muxuu jecel yahay minimum reerkaaga iyo qoyskaaga, xaaskaaga inaad kala tashata gurigaaga hawsha ka jirta. amiir baad tahay magaalo yar jooga, governor baad tahay, mayor baad tahay, council baad tahay, xaafadaada cundaha jooga ayaa tahay, ugaaska beeshin ayaa tahay. washaawirhum fi lamri faida cazamta fatawakal cala allah. waa aayad muhiima oo ku tusaysa maa min xayaati insaanka oo dhan ay ku waajahama go-aan qaadasho ah waxay ku fiican tahay washaawirhum fi lamri subxaana allahi caza wajal. allah subxaanahu wa tacaala markuu ammaanayay mu'miniinta muxuu ku yiri aayad qur-aan ah, wa aqaamu salaata wa amruhum shuuraa baynahum, subxaana allahi caza wajal. mu'miniinta laga hadlayo waa dadka salaada oga, amuurtoodana waa shuuro subxaana allahi caza wajalla, waa la iska wargeliyaa go-aanada la gaaraya subxaana allah. wa amruhum shuuraa baynahum, dhexdooda subxaana allahi caza wajalla waa la iska talageliyaa go-aanada la qaadanayo nolosha basiga ah la iska talageliyaa. waa arrin ay ku ammaanan yihiin mu'miniinta. walaalkayo waxaan uga baaqayaa marka bulshadeenna soomaalida ah, waxyaalaha ugu dhibka badan ee cawaaqib xumadana keenay ee dalkeenna burburiyey ilaa yowmana haada, aayadan sababtan usoo qaatay waxyaalaha maanta wareegaya kiliibyada iyo mawjada xiisada leh ee ka aloosan wadankeena waaye. bal hadduu qof walba oo qaa'ida ama sanitar ah ama gavenar ah ama xildhibaan ah ama maareeye ah ama dowlad ah ama madaxweyne ah ama prime minister ah, inta xukunkiisa hoos joogto asaga talada loogu dhiibay, washaawirhum fil amri hadduu gelin lahaa, weligaa lagama yaaba 100% in lagugu waafaqa taladaada. laakiin maxay dhexal siinaysaa hataa kii kaa soo horjeeday haddaad washaawirhum fil amri tiraahdo. insaanku psychologically marka aad la tashato
حتى هادو opposite kugu yahay mucaarad kugu yahay adigoo og mowqifkan inuusan ogolaanaynin ixtiraamkaas iyo karaamadaas iyo maqaamka aad gaarsiisay inaad kala tashato amuurtaabu ilaahay laga yaaba inuu xal ku keeno ilaahay qalbigiisa kusoo dumo laakiin markaad tiraahdo ana aad tiraahdo shafka garaacato subxaanaka yaa cadiim subxaanaka yaa cadiim inta badan wax kuu suura galaya ma lahan taariikhdana lagu ogaagay insaankaa lagu ogaaday adduunyadii naga horreysaa lagu ogaaday subxaana allahi caza wajalla wixii taariikhda akhriyey bal iskaba dhaafe xaafadaada hataa ana markaad ku hayso maalinka dambe adigoo ana ku hay lagaaga wada tagaaya subxaana allahi caza wajalla talada insaanku waxay ku fiican tahay meel kastay joogaan in ay ahaato naxnu annaga subxaana allah annaga washaawirhum fi lamri subxaana allah rasuulka alle oo waxii usoo degaya oo go-aanada lasoo gaaraya rabbi xaggiisa ay ka imaanayaan jibriil loo soo dhiibaya ayaa waxaa la leeyahay washaawirhum fi lamri subxaana allahi caza wajal ka talageli oo arrintaa iyadaa shuraka kala dhig oo tallaabooyinka aad qaadaysa washaawirhum fi lamri subxaana allah fa idaa cazamta fatawakal cala allah walaalkayga qaaliga ahow bulshadeennu waxay u baahan tahay inay ku baraarugto alla subxaanahu wa tacaala aayaadkan qur-aanka uu soo dejinayo micnaha u soo dejiyey kudayasho muhiima ayay mudan yihiin ma aha wax iska novel ku qoran ama historical iyo buug isaga qoran iska tuuraya maaha subxaana allah caza wajal wallaahi lowlaa madaxdeennu aayad iyo laba keliya intay dul istaagaan ay dabaqi lahaayeen liajli illaahi u dabaqi lahaayeen walow aynan inta badanba samaynaynin dalkeenna iyo dadkeenna subxaana allahi ilaahay waa baraarin lahaa ummadeenna iyo walaaladeena qalbigoodu alla subxaanahu wa tacaala isku soo dumi lahaa washaawirhum fi lamri ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyay qur-aanka wa amruhum shuuraa baynahum muuminiinta lagu ammaanaya arrinta iyada subxaana allahi caza wajal walaalkayga qaaliga aho waa arrin muhiima qofka insaanka inuu ku baraarugo ka gaar ahaan qofka soomaaliga ah ee maanta laga yaabo inuu tala qoys u qabto ama dowlad u qabto ama magaalo u qabto ama dal u qabto waa arrin munaasab ay tahay inuusan kusoo laabanin kelimada ah aniga iga go'daa anigaa xiira anigaana soo bixiya washaawirhum fi lamri subxaana allah haddii maxamed ibni cabdillaahi sala allahu calayhi wasalam lagu yiri washaawirhum fi lamri amar lagu siinaya isaga amarka ka talageli laleeyahay adigu oo macsuum ahayn waa nabi maxamed macsuum ah غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر إله بالقرآن يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ذنبك سوريكي ذنب والله ضعف سبحان الله عز وجل مع ذلك وحال الله أمر لقسينا وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله هل كي جوكتا أذيقوا الذنبي لا oo laga yaabo ku ilaahay aad ka gashay ku dadka aad ka gashay ku dalka aad ka gashay ay jeebabka ku buuxaan ina haddana aad ceeb ka saliin intaad iska dhigta aad tiraahdo anigay talada iga go'daa ciidan aniga ahayna lagala tashan maayo subxaan allah waxay ka mid tahay calaamooyinka fircooniga ay ka mid tahay asaguusan alla jecleen calaamooyinka waxay ka mid tahay keenaya qofka qaa'idka inuu quality-giisa baabo subxaan allahi caza wajal walaalkayga qaaliga oo aayadan qur-aanka iyo aayadda ku xigtay waxaan kugu soo jeedinayaa inaad awalan naftaada ku baraarugto naftaadana ku dabaqdo aad kala tashato go-aanada nolosha aad ka gaarayso hooyada walaalka aabbaha xaaskaaga dadka kula dhashay waxaad dhashay inaad kala tashato washaawirhum fi lamri subxaana allahi caza wajal war maxaynu ka yeelnaa inay khayr keenta mooye wallahaynan keenaynin dhibaato kale war maxaynu ka yeelnaa waxaa la yidhi geeljirihu asagoo usha meeshuu ka goynayo haddana dadka ka talagelinaya subxaana allahi caza wajal geedka halkuu ka jiray isagoo buu haddana ka talagelinaya maxay tahay mahmahda xigmad weyn oo rabbaani ayaa ku jirta walaalkayga qaaliga aho ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayaa ilaahayna ka baryayaa allaahuma mu'alif bayna quluubi soomaaliyiin ilaahay muslimiinta iyo soomaalida quluubkooda ha isku soo alifo wa aslix daata baynihim اللهم مؤلف بين قلوب الصوماليين يا رب يا رحمن وأصلح ذات بينهم واجعل كلمتهم على الحق يا رب يا رحمن إلهي سبحانه وتعالى كلمة ذو حقه كل ميو إلهي قلوب توضح إسوا فجيو حديث تلاوضا الله دبقو خير بدن با إيمانايا أنيق أذيك محنقيق آدن الله سبحانه وتعالى سيدو نوسو غارسيي صحابة أي نوسو غارسيين الله نوسو subxaan allah inoogu soo gaarsiiyey aayadani inaad inta kugu jirta facebooka gaarsiiso laga yaaba mid qaafil oo moog in cid lala tashadaba alla subxaanahu wa tacaala dartiisa ugu baraaruga laga yaaba mid dad gacanta ku haya oo meel mahkaama jooga oo taladu ay la soo gudboonaatay rabbi intuu kaliibkan tusiya maskaxdiisa ay dib u shaqaysayo ku baraaruga allah yaxfadakum wa yarcaakum damtum fi xifdi araxmaan wa liqaan ukhraa
cashir kale ayaan doonaya caawa inaan idin siiyo, laakiin aayadan ee mawjada maanta ka jirta bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ayaa arrinta insha Allahu tacaala ayaan idinku baraarujinayaa labadan aayadood ee ku saabsan ahmiyadda ay leedahay wa amruhum shuuraa baynahum wa shaawirhum fil amri fa idaa cazamta fatawakkal cala Allah laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana. rabbi alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay rasuulkiina waxaa idinkugu sugnaatay qudwo xasana ah ee ku dayasho aan kama dambays lahayn. subxaana allah, haddaad tahay ummadda nabi maxamedna aad ku dayanayso amarkaasaa la siiyey. haddaad ra'iis tahay iyo haddaad xukuumadda ku jirto iyo haddaad tahay xildhibaan iyo haddaad tahay governor, haddaad tahay mayor iyo haddaad tahay senator, washaawirhum fil amri, dadka talada aad u hayso washaawirhum fil amri. insha allahu tacaala kursigaaga ka dhici maysid, alla meesha waa kugu sugayaa, tala fiican baa lagu siin doonaa, caqligaaga kuguma filna. wa fawqa kulla dii cilmin caliimin, mid kasta oo cilmi badan mid kasii cilmi badan ayaa jira. subxaana allahi caza wajalla, taladaadii caqligaaga kuguma filno. hadday kugu filan tahay wallaahi ma aadan usoo istaagteen inaad xil qabato. hadday kugu filan tahay wallaahi ma aadan cid kale colaadiseen. waxaad cid kale ku colaadinaysaa oo aad xilka u haysaa oo weliba xilka alla kuu dhibay subxaana wa tacaala aad kuwa kale ugu joorfalaysaa, cilmigaaga iyo caqligaagaana kugu filnayn. hadduu kugu filan yahay waa isaga fogaan lahayd. subxaana allahi caza wajalla, culayska ay leedahay haddaad og tahay iyo mashaakilaadka ay qiyaamaha leedahay iyo su-aalaha ay leedahay haddaad og tahay maba aadan qaadeenba xilkaas. laakiin maadaama aad ku adkaysatood qaaday, bal insha allahu tacaala al aqal washaawirhum fil amri, si adigana talada kugu fiicnaato ayagana ay u fiicnaadaan. fa idaa cazamta fatawakkal cala allah wa amruhum shuuraa baynahum. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu insha allahu aayadkan iyo baraarujintan ani adiga nagu anfaco, adigana alla subxaanahu wa tacaala ku makansiiye inta facebooka kugu jirta inaad gaarsiiso walaalaha iyo asxaabada kale aad gaarsiiso. ilaahay subxaanahu wa tacaala dalkeena iyo dadkeena hanoo hagaajiyo, ru'asadeenna iyo xukuumadeenna iyo dadkeenna iyo insha allahu tacaala dadka xilalka loo dhiibtayna alla qulubtooda ha isu soo dumo. wajmac kalimatahum cala alxaqi yaa rabbi yaa raxmaan. salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aniga adiga doorkeenna aan ka ciyaarno soo dhiska iyo baraarujinta iyo ilaahay subxaana wa tacaala akhlaaqiyaadka iyo makaarimul akhlaaqi bulshadeenna, inaan salawaatullaahi wasalaamu calayhi intuu na soo gaarsiiyey aan gudbino. ani adiga aan qaadano, aan qaybteenna ka qaadano, ani adiga aan qaybteenna ka qaadano. alla subxaana wa tacaala waana barakaynayaa, bulshadeennana meel khayraan u horseedaynaa. salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alla dartii ayaan idin jecelahay, khayrkeena aan kugu soo gudbiyey, waqtigiigana aan kugula wadaagay. إن شاء الله ولا لذا كلا أقول إن شاء الله تعالى إلى قيام الساعة سأجري حسنات لسبب أقول هشو إلهي أمدين قلبي جاني أسوس ضم الله جيابا قوة لذا لو ديبتين قلبي وأسوس ضم خير إبرارنا أين قارنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.